الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العليم. إله با مهله ما أنت هلك اسكو كيني إله با مهله مسلمين إنك دقي إله با مهله اسكو ديجان اسكو أف إنك دقي مركز دمنا إن اسكو نمت حسبك كل مية marka waxyaabo fara badan baynu wadaagnaa oo dhinac walba uu iska nimid marka arintan imika kala yimaadada xisbiga kulmiye waxaan filayaa xisbiga kulmiye Ilaahay ka dhigo midkii guuleysta horumar fara badanna wadanka u horseeda intaasan kaga baxaya Sheekh Mustafa Ismaaciil xubinta labaad ee barnaamijkeena caawa iyadoo marka horeba dhammaan hadaynu nahay bahaweynta kulmiye shir kastoo aynu qabanno wax kastoo aynu isugu nimaadno waxa la yiri biyo meel godan bay isugu tagaan waxay daaran tahay kamida dhalinta guusha tartanka doorashada soo socota ee xisbiga kulmiye uu galayo hogaanka dalka taasoo aynu rabno inaynu kamida dhalino sidii uu kursiga dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxtinimadeeda uu hanan lahaa musharaxiina xisbiga kulmiye Mujaahid Muuse Biixi Cabdi shirkan iyo shirar kale oo badanba waxay daarnaan doonaan laanta Great Manchester xisbiga kulmiye oo fulinaysa waajibaadka ay uga wakiil tahay xarunta dhexe ee London sidii aynu doorkeena uga qaadan lahayn tartanka doorashada soo socda ee uu inoogu sharaxan yahay madaxweynaha xisbiga Mujaahid Muuse Biixi Cabdi iyo musharaxa madaxweynaha ku-xigeenka Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici haddana ah madaxweynaha ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u daadegayaa haddaba furitaanka xafladda iyo soo dhaweynta martida iyo ka soo qaybgalayaasha oo kalmada qaadan doono gudoomiyihii hore ee laanta Manchester ahna aqoonyahan xubin firfircoon isagoo aan mimbarka ahayn gudida laanta haddana kaga dhabeeyay oo fuliyay maalintii xilka gudoomiyenimada uu wareejiyay ama uu ka tanaasulay ballanqaadkii uu ballan qaaday inuu gudoomiyaha la doortay ee Jaamac Ali Faarax la shaqeyn doono taasoo uu si cad oo caawa marxaadi ka noqon doonto uga soo baxay la shaqeyntii Maxamed Saleebaan Sarmaan dhammaanteen waxaan halkan isugu nimi oonana idinka ka mid ahay waajibaadkeena saaran ee inaga saaran dalkeena iyo kan xusbiba ayaynu gudanaynaa horta maanta dhammaantiin gudida fulinta ee ka timi gudida fulinta heer UK iyo gudida reesha filabada waan soo dhaweynayaa marti sharaf kale reer Manchester maanta waxaan leeyahay soo dhawaada runtii farxad bay ii tahay inaan muddo dheer iyo dadaal badan oo galay kadib maanta ay halkan noola joogto gudida fulinta ee xusbiga UK qayb kamid ah taasoo kulli ah hawlahooda shaqo ay u yimaadeen magaalada waxaan soo dhaweynayaa dhammaantiin si gaar ah maanta halkan waxaan u kacay runtii aan u soo dhaweeyo niman dhalinyaro ah oo saaxiib nahay muddo badan saaxiib ahayn soo wada shaqeynay aqoon-yahanina ka tirsanaan jiray xusbiga mucaaradka wadani nimankaas dhalinyarada ah oo ahaa mas'uuliyiin qaran oo xilal badan ka waaweyn ka hayay xusbiga oo ka mid yahay gudoomiyihii xusbiga wadani Manchester ama Greater Manchester oo maanta madashan la fadhiyo oo xusbiga ka soo digarogtay waxa kale soo dhaweynayaa Ismaaciil Goox Axmed oo isaguna ahaa xoogayihii xusbigaasi oo isaguna maanta ka soo digarogtay oo laanteenan iyo xusbiga kulmiye ku soo biiray waxaan kale soo dhaweynayaa saaxiibkay Mubarak oo isaguna ahaa afayeenkii xusbigaasi wadani oo ka soo digarogtay oo madasha fadhiya runtii farxad weyn bay tahay niman dhalinyaro oo in badan soo wada shaqeynayno aan saaxiib isku dhawahayn inaan maanta ka midoowno mabda siyaasadeed oo aan isku xusbi ka soo wada jeesano waxaan leeyahay soo dhawaada xusbiga kulmiye waa la wada leeyahay waan isku soo dhaweynaynaa si wanaagsan baan idin soo dhaweynaynaa kaliya baan isku soo dhaweynaynaa idinkana waxaad ku codsanayaa nimanka ay la soo dhaweysaan oo adeegsaniya samiya waliba anoo leh gudoomiyaha xusbiga laanta kulmiye injineer Jaamac Ali Faarax injineer nimanka waxaan doonaynaa inaad si sharaf leh u soo dhaweyso oo adeeg nimankaas waa mas'uuliyiin waaweyn ma yahayn runtii niman suuqa joogay niman xilal waaweyn hayay ahayd effort badan la geliyay in dib loola noqdo waqti badan la geliyay
nimanka waxaan doonayaa in xusbiga si weyn ugu soo dhaweyso mas-uuliyad iska saarto taasna adiga kula dardaarmaya runtii waxaan u malaynayaa dee gabagabada intaasaan kusoo gabagabaynayaa waxaan kaloon halkan doonayaa inaan ka idhaahdo kelmad aada runtii u muhiima xusbiga kulmiye muddo dhaweyd wuxuu shaaciyey inaan wax xaflada ah oo munaasibadahaas waaweyn oo la shaaciyaan la qabanin taas oo lala wadaagayo walaalaheenna dadka warsiiba gobolada bariga ay abaaruhu aafeeyeen horta waxaan ilaahay ka baryayaa inuu raxmaadkiisa inoo shubo dadkaana abaarta ka dulqaado runtii oo wax naxdin leh dad markaad aragto walaalaheena gaajoonaya abaar mataqaanaa ay ku habsatay taana waan u ducaynaynaa ilaahay inuu raxmaadka inoo shubo laan ahaan iyo magaalo ahaanna qaybtii runtii inagaga beegnayd lacag badan baa la ururiyey waa looga qayb qaatay waa la diray taasna kolley waxaa ka hadli doona nimad badan oo iga dambeeya waxaan leeyahay soo dhowaada siiba saaxiibaday guddida fulinta ee UK dhammaantiin waan islaam assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan aad u soo dhaweynayaa guddida sharafta leh oo inooga timid maxay ahaydee xisbiga kulmiye UK ku soo dhawaadana gacmo furan waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay maanta inaan ka qayb qaato soo dhaweynta mas'uuliyiinta ka socda wadani iyo ucud oo ku soo biiray xisbiga kulmiye waxaad arkaysaa inay meesha hawl ka socoto ay shaqo socoto markaad aragto dad ku soo biiraya waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa runtii oo markii ugu horreysay la kulma ay tahay guddidan inooga timid ama wafdiga la socotee magaalada aynu jaarkana Sheffield aad baan idin soo dhaweynayaa ta kale waxaan aad ugu mahadnaqayaa anigu magaciintii aan muddo yar baan joogay ilaa sanada intii aan la shaqeynayay markaa aan deganaa Manchester siday laatan Manchester ay soo habaysay hawliga ku socoto iyo sida u shaqeynayso iyo structure-kii xisbinimada ay u dhamaysay aad baan ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha hogaaminaya injineer Jaamac iyo hawlwadeennada kale ee la shaqeynaya waxaan kaloo idinku gubaabinayaa runtii wala tartamaya xisbiyadu way tartamayaan doorashadiina waxba kama harin marka xisbi ahaan waxa aynu ugu habboonayno saabulo aynu ku tala galno hawsha weyn aynu ku soo hawl dhaqaale loo baahan yahay in wadankii la tagaa loo baahan yahay wixii maskax iyo fikir iyo xoog baad haysan inaad ku biiriso marka runtii hadalka intiisa badan wada la yidhi ku sii dheeraan maayo waxaan ku soo dhaweynayaa guddoomiyaha laanta Manchester injineer Jaamac waxaan mahad celinayaa guddigii fulinta ee wakiilka ka yihiin guddigii fulinta inoo yimi ee wakiilka yihiin guddigii fulinta ee uu hogaaminayay xariir xirse adar maanta way qabatay 15 shir oo istaba jooga afar kamida waxa ka qayb gashay afar kamida waxa ka Mustafa afar kamida waxa ka qayb gashay maxay tahay laamaha dawladda ka qayb gashay kii ugu horeeyay waxa 16 bishii afraad waxa ka qayb galay aniga iyo guddoomiyaha iyo guddoomiyaha garabka haweenka iyo inka Axmed Cabdullaahi guddiga fulinta ku jira shirkaas wuxuu ahaa West London ayuu ka dhacay waxa maxay tahay guddiga fulinta iyo laamaha dhan ka soo qayb galay guddoomiye Muuse Biixi Axmed madaxweynaha 2017 ayaa conference kala soo qayb galay xusbigu wuxuu taageeraa guddiga fulinta ee UK oo maxay ahaytoy wakiilka xusbigii guud ee Hargeysa Somaliland oo hogaamiyo xariir xirse aadan ayaan laanta taageero buuxa hiil iyo la garab taagan tahay xilbaan kayse arrintaas naga gaarsiinaysa insha Allah taala laanta waxay ka taageero buuxa u haysaa oo isgarab taagi doonto oo u hiilin doonta laanta Sheffield ay hogaantahay Yaasiin Carbash uu hogaamiyo laanta waxay kale isgarab taagi doontaa xusbiga kulmiye dhammaantiis isgarab taagi doonta laanta waxay kale isgarab taagi doontaa Muuse Biixi Cabdi isgarab taagi doonta laanta waxay u hiilin doonta dhammaan Somaliland oo dhan bay u hiilin doontaa dhulkii waxa ka socda de waa ogtihiin waa abaar xoog leh gobolada bari waliba waa lagu idlaaqay xagga biyo la'aanta baad la'aan cunto la'aan dawo la'aan iyo de hoygii wixii la gashanayay hoy xumo dhar xumo wax badan baa taalo de aad baa loo dayacan yahay marka waxa wanaagsan inaynu halkana aynu joogno qof waliba de waxba cunaa talaagadu u buuxda feer maaha ifka aakhiro waliina weydiinaya ifka in dadkii qaar gaashoodaan qaar dhirgaan oo qashinka ku shubaan markii ay
cuntada ka dhirgaan inta hadhay baa lagu shubo oo la qaado hortaan iska dayno reer walowba in yaroo kugu filan kalso biyahana biyo la'aan baa dhacday biyahana ku maydhanaysaan wiigii maalin iska maydha qasabadana saa shubaysaan waa lagu ciqaabaya in dadkii gaajoodaan ama biyo beelaan hooyo biyo beeshay ama ilmo yaroo biyo beelay dee waa layna wada weydiinaya qof aan la weydiinayn ma jirto xaggii islaamnimadana dee aynu dib u eegno oo isu naxno taasuna waa taa anigu waxaan ka marahay guddida london ee abaaraha london dee dadka u badan london bay joogaan waa haaf ummaddii halkaasi ku noosha lama wada gaadhin laakiin qorshihii lagu gaari lahaa baa la wadaa ilaa hadda lacag waxaan guray 51,000 oo baan lacagtiina waa dirtay haddana waa wadnaa wiigan dhowna lacag kala la diraya laakiin waxa loo baahan yahay dadka sidii lagu gaari lahaa in la sameeyo dee qorshihii lagu gaari lahaa oo gurguri qof lagu qaado qofna la dhaafi maayo marka idina waxaad ku boorin lahaa qolooyinan Manchester degan ama Sheffield aqal wiigiiba loogu tagalay hay ma haysaan dhar ma haysaan lacag ma haysaan xoolo ma haysaan naftun qofka looga tago iyo intaa uu ku filan cunayo carruurtan aan wiiq qaadin noo carruurtan talaagada ku sii jeeda habeenaya maalin u sheego xataa ma la gaajooday talaagada ka baxa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان golaha shirka waxa jooga rag iyo dumar way salaamihiin gudida la dhanka timi gudida Sheffield gabdhaha dhalinyarada guddiga waa salaamantihiin qoliyaha cusub ee ku soo biray kulmiye dhinac kasta tihiin aad baa u salaamantihiin inta kadib arintii uu ka dhawaajiyeen saaxiibkay Maxamed Salabaan ee ahayd ama guddiga ka dhawaajiyeen abaaraha wax qabadkii hadna wax idin ka taabto laba urur baa iska ashay halkan ururka hablaha oo la yiraahdo hinda hibo iyo hadaf labada urur oo gudoomiye guud uu ka yahay hoos hadaf marka waxaanu sameeynay waxaanu la contactnay oo qolo la yiraahdo Islamic Relief oo charity weyn oo African organization badanaba Africa khaasatan ayay u tahay saldhig u ah marka waxayna siiyeen shahaado ama warqad aanu meeshan doono wax kaga codsano masaajidada streetka oo legal ah qalabkii wax lagu urursanayay bayna siiyaan pocketadii garamadii marka waxay noqotay first time kii Soomaaliya loo gashado garan international maxaa la yiraahdaa organization charity loo gashado ayay noqotay marka ma sha Allah 2,500 ee habluhu sheegeen iyo 2,000 oo aan ururinay markaan isku darnay waxay noqotay lacagtaasi 5,550 oo aan daraata dirnay ku hagaajinay akoonkii abaaraha ee magaalada Burco waana wadnaa imka dhowr masaajid saddex masaajid baan ka ururinay ilaa dhowr masaajid oo kale way noo harsan yihiin waxa meeshii muhiim ah oo taala sida Cabdi Jaamac ka dhawaajiyay abaarahan dee bari bay dhici doonaan maxaa aynu qabsan karnaa aniga waxa ila tahay maadaama aynu dadkii wadanka lahaanahay qurba joogna aan nahay kana ilbaxsanahay kuwa wadankii joogo in waxyaalo badan ay arkayaan ama ay fahmayno in aynan sidaa ku hadhina aynu guddiyo khaas u sameeyno qaar wadanka Ingiriiska dawladda ay la deganahay la contact gareeya qaar charity-yada wadanka ee shaqeeya la contact gareeya حتى waxaan ka dalbanay Ramadaan oo kale inay fundraising telefishinada islaamka ay noo sameeyaan maalin kamida waxay noo sheegeen every Ramadaan hal TV ba la isticmaalaa la yiraahdo Islamic channel kabla milyan bay sameeyaan habeenkii dawladuna waxay sameysay wax la pound for pound hadii 100 gini ay dawlad charge qofku yabaho 100 bay ku daraan hadii 1,000 ku yabaho 1,000 bay ku daraan marka waxay Ramadaan tan soo socota chance baynu leenahay insha Allah inay nagu daraan emailka ugu dambeeyaan ka helay marka ku dheeraamayo دي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بالمشي ميال هذا كوالد مايست وأنتوا دم بيسي وحنا أنا كريان وحنا كذا على سد حكم ضد هذا سد حكم بدي بحاول يورت إن هاوشة وسيدي وشين وكذا كان وقع معي قدوميين رشفيل قدومي شفيل لكي ما هابنا فرسك على جدنا أرد كابدي صبان أرد إنه حاجة إنه كدرنا سبيكر كدرنا سي إنه فوضى ولا فنو تورشة هذا على دمه كل بيه ما فاتي صو حق تبها ذاك كل شيء عسكري كنا إنه مسبب عندي ونظام العملية سوالي هذا على دمه
baa aniga hore oo ku riyooday ma fahanteen taasi waa mid midda labaad waxa weeye asxaabtan ku soo birtay xisbiga waa iyaduna waa soo dhaweyntii moontahay bisafa ka wala dad badan wala war bogtahay waa kala iyo saddex xaalin oo ka soo dooratay wadani soo dhawaale laakiin anigu waxaa la yaabanahay xisbiyadu waa xisbiye qaran xisbiyadu inay burburaan oo baabaan la waayo ahwada ka baxaan qof Soomaaliland oo deen uma jirto horta waxaan u lahaa guddi aan u dirno gaar ahaan xisbiga la yiraahdo ee wadani bal aynu maskaxda arbaash loo geeyo xisbigu yiri burburinde inuu burburba ficilade waa xisbi qaran لما إهراب رعوا مشاكل واحدة أو كمري أنا واحدة بريجي وبابا حسبي أدب ماشي كوها بونايد أيوب بس كمري دبنا الساس أدورة سيدي قنتال كده دبنا ما صار نقمبا شو هم بعاكوا شكله بفاتي هرت لما رأوا إنه سار نقضوا الدنيا لما الدنيا we don't need to see that بفاتي إذا الشقيان أنا لا تمام محرمنا أنا فوتبول باكا يلا we need to play football game ما فهمتي أما بودكاست game أو صدق حسب أي شيء بالو بهاي قرن ورحمة الله وبركاته أولا ورت لها ما هس إسكالي سوق كان هالككن وحن سود وين إياه كنت ذا كتيم ردن فلنتا كنت ذا شهر شفيل لما أنت بسود وهذا الله هاي كسود وهذا مانشستر عادنا ومحسنتهن waxaan kala soo dhaweynayaa qolada ka soo diga rogatay wadani waan leeyahay idina soo dhawaada reer Manchester isku ahayntenahay laakiin xaqan ay soo diga rogteen iminka waxaan leeyahay gacan furan ku soo dhawaada ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu abaarta inaga jabiyo oo roob khayr qaba dalkii ka shubo insha Allah waxaan rajaynayaa in xusbiga kulmiyana guuleysan doono mar labaad waa in boorka ka tunno iminkana انت سنكسو جيجيني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan u mahadnaqayaa horta laanta Manchester soo dhaweynta ayna siiyeen waxa kale oo u mahadnaqayaa guddida iyo xubnaha xisbiga ku soo biiray wixii kale waa laga hadlay laakiin ninkan ay xusuusiyay shaqadeedii askarigu wuxuu noqdo anu askari baan ahaa waxa weeyaan waxaanan adigu waxa dilowday kii askarta ugu weynaba dilowday diigol askarigu ahaa jabhadna wuu ahaa wali wadankan uu jabhadnimo ku joogay anu ciidamada Faransiiska galo isagoo taliyaan ciidamada galaano wadogtiin wadankiisu wuu dumay wuu baabaay maantana waa wadanka Yurub hogaamiye weeyaan kolka ninka askariga wax ka sheegaya matalan askarigu waa awr hayina weeyaan oo leeyli gooyi ninkaan askari noqonin wali waa leeyli weeyaan ma aha muu hayin ma aha sababtoo xawiyada askarigu wuxuu galay iskuul lagu dhigto dulqaadka adkaysiga iyo aadaabta waa discipline weeyaan anigu maalintan ciidanka Faransiiska galay waan casheeyay dabeedna saxnigii wax ku cunay miiskan kaga tagay dabeedna ninkii saajinka ahaa amba sarjaka saa u taqaaniin albaabka joogaba wuxuu yiri saxnigaad wax ku cuntay mee qaasa waxaan ku yiri waa ka miiska yaala wuxuu soo qaado mayd waa wax igu horeysay saxniga wax ku cunay inaan meeyay iska daayo maalinta horteed miiska kama aan qaadin saxniga wax ku cunay kulka adaabtu halkaas ay ka bilaabantaa waxa weeyaan adaabta lagu barayaa waxaana dooneen baa lagu qasbayaa adoo gaajoonaya cuntada laga celinaya adigoo aan cunto dooneen baa cunto lagu siinaya adoo luloonaya hurdada laga celinaya adigoo aan lulooneen baa leerka lagu baqtinaya lagu seexinaya adigoo daalay baa laga shaqaysiinaya waxaana ogoleen baa lagu qasbayaa waxa weeyaan waa nin aan askari noqonin inuu mas'uul noqdo mid kale ninku askari ku noqdo mas'uul buu noqdo dad buu taliyay ninka gudoomiye xusbi noqdo dad uu talinde askarigu darajadu doonaha lahayd dad buu u taliyaa meelo badan laga keenay oo kala kitaaba oo mid saaqida leh oo mid geesiye leh oo mid cilmi leh oo mid aan aqoon lahayn leh kolka
askarigu wax la cuskada maaha waan ogahay sheekada Sheffield markaan joognaha askari buu waxbuu hogaamiyaa hadda yaa wax hogaamiya haddaan askari hogaamin askarigu ciidan buu xukumaa waxbuu mas'uul ka yahay waa lala xisaabtamaa waliba askarigu wuxuu dadka kaga duway waa lala xisaabtamaa waxaan dadka xusbiyada cidi lama xisaabtamne waa gudoomiye wuxuu doon u sameeyaa lala xisaabtamo walka anu intaasaan ku joojinayaa dhammaantood waa salaamatiin kulmiyana wuu guuleysay qolada waddanka soo baxdayna de bal ku noqdo qolooyinkii idinka dambeeyay waxaad tidhahdaa intaan meeshii idinku dumin kas ka kaalaya waxa uu sheega albaabka toobada kulmiye dhawaa waa la xidhayaa ee idinka dhasoo gaarmisay salaaman yahay qoyahan mubaarak abdi haddana waxaan u yeedhayaa cabdiraxmaan abiib oo ah gudoomiyihii laantan Manchester ee xusbiga wadani cabdiraxmaan waxa la soo dhawow intaan cabdiraxmaan ku wareejin waxaan doonayaa halkan kelmad ka sheego efadkan iyo waxqabadkan aanu ka sheegayno iyo faanitaankan aanu faarino waxa suurtageliyay gudoomiyaha laanta Manchester waxaad ogaataan waxa weeye injineer jaamac ali faarax waa nin runtii samir badan waa nin aqoonyahana waa nin dadku wax badan ay ka aqoonin waxaan u mahadnaqayaa hawsha adag iyo dadaalka badan oo runtii laantan geliyay gudoomiyaha aad iyo aad baan u salaamaya بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أم هذله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام يا دمان مدحض الشرف تلا كتب من لندن يشفل يرجع خيارته يجوج هالكن مانشستر الهوين يرجع بوان أدياد بنو سلامية مقعي واصل دين شيء عبد الرحمن أبي حدي بالليلة وحنا هقدوميه جريد مانشستر وضني مسكع السلة هذا وحنا نقصه بيري ماشي لو بديه oo xisbi la wada leeyahay oo doonaya danta wadanka u shaqeynaya oo arkayso waxyaalooyin ku qabtay iyo wuxuu hiigsanayaba sidaa darteed waxaan go'aansanay inaan ku soo biirno gaadhiga socda aad iyo aad baan u mahadsantihiin sida sharafta leh aad noo soo dhaweyseen aad noo maamuusteen xilqaan iyo wax sheeg iyo wax walba aad ka geysateen dhammaan raggii ka soo shaqeeyay aad iyo aad u mahadsan waxa weeye hadii aynu nahay halkan waxa loo inooga baahan yahay cod la inooga baahno oo nin tagay wadankii intuu tago soo codaynaya ma jiro laakiin waxa loo baahan yahay inuu qofkii أو membership نقضه ومسكح ديسي دقاله ديسي وحي سنة أو قليو حسبي قصده ونقول لها ضد كاسي ضد وحلاقة بنكره من دوان شيء يا وحوي إنك وحن كود ذا لنا نبرة تعلقف أو قف وح نقضه لكن هدين كود ذا لنا ودن كين وح نقضه ومد الله شقيه وإنه مركي جديد ينوت مع ده ما مدحض ينوت مع ده إنه شيء إنه محل قبنية محل قرشيسن محل صدنية waxay noqonaysaa marka wadankeena inuu noqdo abaarahan in laga baxo oo wax walba ay noqoto wax la tala galo oo taladii aynu waxaan ka geysana ayaa tala noqonaysa marka waxa weeye annagu waxaan nahay hadda marti wax inta ka badan oo sheegi karaan ma jirto laakiin waxaan aad iyo aad inigu mahad celinayaa maskax ahaan awal waxaan ahayn waxaan ka nimidnay xisbi kale laakiin waxaan marti ku nahay waxa weeye maskaxdan hadda cusub أنا كسب بيرنا أو كلمي سأدرتي واحد شيء إنه وحوي إنان وحي مسكح يوحي عدود يحوق عن لهين إن نقولنا كلمية عندنا شقينا أن نلبر إتالله وحن قام كرنا قبنا أبيات بند ما سنتين شرفت لنا سود وسنا وندق مع لنا هواني الرقبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore waxaan u mahadnaqayaa madaxda inooga timi Sheffield iyo London taageerayaasha kulmiye ee Greater Manchester rag iyo dumarba waxaan u mahadnaqayaa oo kale asxaabtayda iyo gudida laanta Manchester ee kulmiye ee soo qaban qaabiyay shirkan waxaan aad idinka mahad celinayaa sida wanaagsan aad noo soo dhaweyseen nagu soo dhaweyseen xafladan anigoo ah Ismaaciil Goox
ahaana jiray xoghayihii xisbiga wadani ee Manchester. waxaan maanta halkan idinka cadaynayaa inaan ku soo biiray xisbiga kulmiye laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay 26 bishii 11 2016. maanta laga bilaabo siday sheegeen asxaabtii hore halkan ka hadashay raggii hore halkan ka hadlay xusbina aan ka qayb qaadanayna weeye xusbi la wada leeyahay weeye wixii awoodeeda ah wixii talo ah wixii maal ah effortskaanu gelinayno hiliyo howlba waa idinla garab taaganna maalmihii aan ku soo biirnay kulmiyaan wanigii qofkii ugu horreeyay waxaan ahaa fayeenkii Manchester weli booskaygu u bannaan yahay xisbiga wadani cid looma magacaabin sahan baan u ahaa niman badan oo saaxiib ahayno kulmiye wadani kaga yimid maalintii meesha waxaan ka sheegay inaan sahan ahay niman badan oo wada hadal noo socdo arrinkii waan kaga soo dhameeyay waa taa maanta dib guushii ay noo hor fadhiyaan saaxiibaday aanu qaar kale oo naga mid way soo socdaan gudoomiyahayagii baa fadhiya halka Cabdiraxmaan Abiib xoghayahagii baa fadhiya Ismaaciil Goox anoo afayeenkii baan inta soo boos wali way banaayeen cid looma magacaabin waxa isleeyahay waa ka furfuro waa laga soo furfurtay meesha kulli hadallo badan way noogu maqan yihiin meesha iyo kulli wax badan baan rajaynayo inay ay naga dad badan naga daba yimaadaan wada hadallo badan baan noo socda markaan waxaan rajaynayaa imika kulli madashan quruxda badan leh maanta ay nagala soo qayb galeen guddida heer qaran ee inooga timi UK waa farxad weyn bay inoo tahay waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo sida wanaagsan ee inoogu qabsoontay waxa kale oo rajaynayaa inay taa mid kamid ah ama ka sii ballaaran inay inoo qabsoomi doonto insha Allah waxaan kulli abaaraha jira wadanka abaarihii jiray laftigoodii baa waxaan kuuri noqday wax بوليتيك lagu galo ragna waxa lagu taagay war waxaad bixinaysan mikrofoon ka sheego oo umada u sheego oo ha noqdaan wax la idiga daydo ragna waxay markii waxar yar caagad siinayaan bas sawir bay oranayaan la galo oo taasina mushakil soo kordhay bay noqotay marka waxaan leenahay qofkii wax bixinayaan hor Ilaahay waxa uu bixiyo umadana waa umadeeni waa umadii codka laga dooniyo umadii hadhow tole loo baroorinayo laabta loo garaacay nimankan odayaasha ah ee walaalaha ah ee ka soo magaranayay noqday ama ka soo barakacay ama ka yimi xisbiyada aynu walaalaha nahay xisbiyada ucud iyo wadani waxaan leeyahay sahan wanaagsan baa aragteen waxa aragteen sida dadka kulmiye uu wax ugu qabanayo ama shakhsi ha noqoto ama magaranaysa nin laan jooga ha noqoto ama madaxweyne ha noqoto ama xisbiga madaxdiisa ha noqoto Muuse Biix Cabdi siday kulli ugu taageen xaaladda mar badalka ka taagan marka aragteen ayaa taan waryaada halka kan loolanaan waxba ka jirin baa ka jira annagoo aan runtii aan ixtiraamayo xisbiyada aan walaalaha Britain baa naga dhaxeeya waxaanu leenahay waxa Britain-ka aan ku kala badin karnaa aanu idinkaga badino caaw ragga akhyaarta ah ee hor fadhiyaan ku helay wax qabadka weeye kulmiye idinkuna wax qabad la'aan baa noqoteen war ka kaco dadkiina wuxuu qabtaa wadan iyo ucutiin si aad noola beretami kartaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي وين السلام يا سلام دبديد قلادة تيمي نقول صابرتي وطني يوم مرتدا نوقع تيمي لندن يا شافيل يا مانشستر يا قلادة وعد كتيمي لفتي دبوا سودوين يا سودوين دبديد وحنا هي قلادة كتيمي وطني مركي عن خاتمها يحس بقى وطني أرهم بدن بنكود شقين كرهي anigu horaan de uga imiyo kulay idinku hadda noo timaadeen si gaar ah idinka idin soo dhaweynaya maadaama bari hore isku mafaadi ahaan jiray arrimihii barigu meel wanaagsan bay marayaan waxa weeyaan nabadayntu waa soo dhaweynaa xukuumadana waa ku hambalyeynayna qolada khaatume ee garatay ina waan ku hambalyeynaa iyadana waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inay si guul ku soo dhamaato xisbiga wadani gudoomiyihiisu كلي دوال وجاي وحويه واتي قاعد كغير دعدي كحجين كيسي بري شركة لا يسكو قبضة كوجان كيسة قنين أنا هو بجرتي على لها إلهي نقول يل كده حاجة عبارة كلي أنا جوا حمد نجهل مايان أنا كل ميان أنا هاي مشورتي
marka xisbigu wuxuuna gashaday baanu ku taageeraynaa horumarka iyo laamiyada iyo nabadaynta baanu ku taageeraynaa waxa weeyaan waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu guul iyo gobonimo ku soo dhamaato nabadaynta iyo arrimaha socda taasi hadday soo dhamaatana waxa weeye yana way ka sii badanaysaa taageeriddu iyo dadku waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu abaarta inaga jabiyo guul iyo gobonimona uu inagu nooleeyo aad iyo aad baan idin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane iyo marwooyinba waxaan aad iyo aad u salaamayaa runtii guddidan sharafta leh halkan joogta marka laga bilaabo gudoomiyaha jaamac ee Manchester gudoomiye Yaasiin Arbooshe iyo dhammaan guddidooda fulinta labada laamoodba waxaan iyagana aad iyo aad u salaamayaa soona dhaweynayaa oo si sharaf leh iyo karaamo iyo qiimo leh ku soo dhaweynayaa raggan idinku dhalinyarada ku sheegteen anigu waxaan leeyahay madaxdan wadana iyo ka soo baxay iyo wicid aad iyo aad baan soo dhaweynayaa wadad baan u arkayaa runtii xaqiiqadii soo taabtay taa markaan ka baxo runtii Manchester aad iyo aad baan u salaamayaa maanta waa mar labaadkii aan imaado anigu Manchester markii berigii guddidii hore ee kulmiye Faarax Sajeed gudoomiyaha ka ahaa marka laga saaro intii dambe waa mar labaadkii aan imaado maalintaas waxay maalintan guddida waxaan ahayn guddida khilaafaadka waxay maalintii guddida la dhisayay waqtiga aan maalinta halka ku dhisnay guddida iyo waqtigan inta u dhaxaysa iyo xawaaraha ay socdeen oo wax runtii aad loogu farxo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد مدناء مروبة iyo gudoomiyaha laanta Manchester gudoomiyaha laanta Sheffield xubnaha la socda guddida fulinta taageerayaasha xisbiga kulmiye laanta Manchester dhalinyarta ka soo digarogtay ama iskaga soo carray xisbiga wadan la yiraahdo iyo ucud aad iyo aad baan idin soo dhaweynayaa waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaa sharaf iyo ammaanta inaan ka soo qayb galo xafladda soo dhaweynta dhalinyartan lagu soo biirtay iyo annagoo u nimid indhayn laanta aanu xog waraysi isla lahayn 6 bilood ugu dambeeyay wixii ay soo qabsadeen iyo heerka ay u marayso xisbinimada iyo laantu labada laamood oo aan aad iyo aad ugu mahad celinayo laanta Sheffield oo iyaduna halkan noo sahashay umuurtii inaanu Sheffield tagno oo halkan loogu timid waxaan leeyahay jazaakumullahu khayr ilaahay subxaanahu wa ta'aala idinka abaal mariyo waxaan kaloon aad ugu faraxsanahay inaan qayb ka ahaa markii laantan la aasaasayay xubnihii la soo diray laanta loo soo diray in laantani abuuranto ayaan ka mid ahaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan salaamayaa odayaasha intaa ka bacdi laanta Manchester xagga xisbiga ama guddida fulinta waa laan aad iyo aad kaga jirta kaalin heer sare ah oo aad lagu tilmaami karo inay tahay laanta imika ugu sidata inkastoo Sheffield meesha joogto ayaduna tahay laanta laamaha oo ay laantii laamaha tahay gebi ahaan laakiin laanta Manchester waa laan aad iyo aad u firfircoon wax qabadkeegu uu tayo leeyahay shaqadeedu ay hore u socoto laantana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa kolley waxaanu nahay haddaan nahay laanta Great Manchester guddideedii runtii anagu waxaanu diyaar u nahay ama aanu maaragtay go'aanka naga go'an yahay sidii aanu laanta Manchester kulmiye runtii aanu meel fiican aanu gaarsiin lahayn ayaa naga wada go'an haddaanu nahay rag iyo dumarba intaa waxa kale noo raacda hadda inkastoo hawshii aanu wadnay ee dardarteeda aanu si fiican u wadnay hawshan abaaraha ee meel walba runtii taabatay ayaa iminka bishii imika ugu dambeysay dib u dhac xoogaa ee kale nagu keentay
annaga oo runtii u leexanay halkii aanu hawshii laanta majistare kulmiye hawsheedii aanu rabnay inaanu kor u qaadisteedii aanu ku dadaalkeedii ku jirno haddana hawshii waxaanu u yar leexinay hawsha abaaraha oo aan runtii doonnay inaanu bal waxoogaa ka qaadano oo aanu dadkii runtii anigu dadkii weliba sanadka tegay ee wadankii soo arkay iyadoo aan abaari jirin markaa dhibaatadeeda runtii dareensan ayaaba hadda anoo ka imina haddana dhibaatadii aan ogaa mid kalena ugu sii darsantay wax kastoo la bilaabo bisinka u horeeya waxaa sharaf inoo ah inaynu wax khayr la isugu nimidnay oo aynu dalkeenii aan tartargelintiisa iyo hawshiisa aynu ka shirayno waxaan mahad horta u celinayaa martida sharafta leh ay nooga timiday London iyo reer Sheffield oo mataankeenii ah oo mataananahay iyaan horta sharaf iyaan celinayaa mahadnaq inta waxa iigu xigaysa dee waxaan ka hadlo kale ma jirto oo aan idin sheego dee waa kulay waa madaxdii baa joogta oo maaragtay wixii ay inoo sheegayso ka hadli doonta marka waan idin salaam والصلاة والسلام على سيدنا محمد انت كتب دي لها ما هدله إلها ما أنت أباره إنك سو قاري روب كنو بلاوي إلها ما هدله وحي لايك رجينية سو روب كنو بلاوي بريا قلبي يتبع إنه هيد قارسيو وروب خير قبا وبر واغله ولقو نستو ولا قلب حاباره إلها ونسيو تاوحي الرعاه halkan runtii waxaan aad iyo aad ugu soo dhaweynayaa walaalahayga sharafta leh ee maanta go'aansaday inay ka mid noqdaan xisbiga kulmiye ee markay soo tashadeen soo go'aansaday in xoogoodii iyo caqligoodii iyo dhaqaalahoodii iyo taladoodiiba ay maanta qayb kaga qaataan xisbiga kulmiye aad iyo aad baan ku soo dhawaaday xisbiga kulmiye amba maanta soo gal amba hore u ahaw amba aasaasi ahaw lama kala laha ka maanta galay iyo kii aasaasi ahaa waa isku xuquuq maanta adiga iyo Muuse Biixi oo aasaasi ah amba siiray oo aasaasi ah isku xuquuq waa tihiin lama kala laha waa loo sameeyay mid baa loo yahay waxa ii raaca runtii waxa sharafi ah in caawa aan joogo magaaladii labaad oo Manchester anu waxaan qabaa Manchester iyo Sheffield inay yihiin tawam amba twins amba mataano السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد أفضل الصلاة والسلام عليه دمان وين سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقا نحن كسو دوين يا مانتا نكو لانتا مانشستر حسبك كلمية مرتدا nooga timid London ee gudida fulinta ah waxaan soo dhaweynaynaa kale xubnaha cusub ee xisbiga kulmiye ku soo biiray wucud iyo Mustafa Saleeman Kaahin isna wucud ka soo biiray waxaan soo dhaweynaynaa kale magaalada Manchester ku soo dhaweynaynaa laantii Sheffield oo Manchester mataan la ah gudoomiyahoogi hogaaminayo Yaasiin aad baan soo dhaweynaynaa gacmo furan baan ugu soo dhaweynaynaa magaaladiinii inta markan ka gudbo haddaan in yaro faafina aan ka bixiyo laanta Manchester hawshay qabsatay iyo laantu sida u dhisantahay laantu waa laan dhisan bishii afraad 2016 waxa la doortay gudoomiye Jaamac Ali Faarax baa loo doortay gudoomiye xubnu doortay laantu aad bay horta u soo shaqeysay contributionada aad bay u ururisay kaarar iyo membershipiyo bay u qaybisay taageerayadeedii shirarka xisbiga kulmiye UK u qabsad meel walba ay ku qabsadaan way ka qayb gali jireen maalintii dhaweeda gudoomiyaha Muuse Biixi Cabdilla soo dhaweynayay way ka qayb galeen marka laantu waa laanta aad arkaysaan cid walba way soo dhaweysaa hablo furfurcoon baanu leenahay xisbiga aad ula shaqeeya oo la'aantood aanu xisbiga maanta heerka aanu soo gaari lahayn aad baanu mahadinaynaa hablaha walaalayaashay ee xisbiga aad ula soo shaqeeyay inta joogtay iyo inta naga maqanba